isku soo noqod wanaag saxaabta qaliga ah meel baa joogtaan mar kale magacayga waa qaliiji waxaa ku guda jirnaa casharadani Dodge for Anfänger jarmalka loogu talagalay dadka bilowga ah waxaa ku guda jirnaa qaybihii dhexe qaybtii u dambeysay ee Bet2 daawasho wacan maanta waxaa soo fiirinaynaa qaabka u shaqeynayo temporale connection wax kale ma ahan waa in sentenceska laba sentence kala madax banan aad isku xirtid adigoo isticmaalaya mar als mar kalena isticmaalaya when dhalinyarada inta badan waa ku kala wareereen marka sentenceka markii aad ku isticmaalaysid als iyo markii aad ku isticmaalaysid when waa aragtay mararka qaar dadka B1 sameynaya in lagu soo dhigo qoraal tiro badan oo lagu dhaho waxaa gelisaa sentencekan als ama when midka saxda ah geli iyo waxyaabo kale todo la mid ah markii aad isticmaalaysid als waa in sentenskaaga oo ku jira jumlad ka hadlaysa wax hal mar xilli tagay dhacay oo tusaale ahaan markii aan 12 sano jir ahaa yacni xilliga 12 sano jir ahayd hal mar ayay ahayd waana wax hore u dhacay markaas oo kale sentenska waxaa ku isticmaalaysaa als oo ah wax hal mar dhacay labis aniga markii aan cunug yar ahaa hal mar bis ayaa cunug yar ahayd laba mar ma ahayn markii aan 12 sano jir ahaa markii galaaska shanaad aan dhiga jiray waxyaabahaas oo kale marka isticmaalaysid baa waxaa ku isticmaalaysaa als haddii aan markaa when u imaano when marka isticmaalaysid waxaa mar walba ku isticmaalaysaa wax mar walba dhaca oo si joogto ah mar walba u dhaca guriga marka imaanayo kale guriga mar walba imaada marka soo toosayo kale mar walba soo toostaa waxa inta badan sentenceska ku arkaysaa markii aad u baahan tahay inaad gelisid when waxa ku jira ima oo mar walba ah yad small aydan soo kale mar walba email maalis oo marar badan ah ayadana waxyaabaha soo kale ayaa sentence ku arkaysaa ku garanaysaa in sentence-kaaga oo galayo when marka haddii aad tusaalooyin hadda caadi soo qaadano waxaan ka bilaabaynaa temporale connection als markii aan aniga als anigoo isticmaalin aad jumlad iskugu xiriirinayno qaybta kuwaad aan ka bilaabno qaybta kuwaad wuxuu ku leeyahay als ich ein Kind war markii aan cunug yar ahaa war das Leben viel einfach nolosha markaas aad ayay u fududeed marka meeshaan alsan waxaa ku dareemaysa waxay tahay markii aan cunug yar ahaa waxa ka sheekeynaysa wax dhacay baa ka sheekeynaysa oo qofka bini'aadinka hal mar ayuu cunug yar noqdaa adiga hadda maanta cunug yar ma noqon kartid markii aan cunug yar ahaa nolosha markaas way fududeed als ich 15 Jahre alt war markii aan 15 sano jir ahaa yacni waa xilli cayiman oo mar hore dhacay markii aan 15 sano jir ahaa habe ich begonnen Fußball zu spielen waxa aan bilaabay in aan kubadda ciyaar ayaa bilaabay tan ku xigta wuxuu ku leeyahay ich habe waa aragteen dadkeenii soo daawaday qaabka oo u shaqeynayo sentences iskugu xira oo name sets connection qaabka iskugu xiran yihiin marna waxaa ka bilaabi kartaa als marna als waxay tagaysaa qaybta dambe haddii aad hor u daawanin intaa kugu soo xiriirinaya qaabka oo sentences connectionka oo la isku xiro qaabka u shaqeynaya meeshan ka daawan kartaan wuxuu ku leeyahay marka ich habe mit dem Deutsch lernen angefangen waxaa bilaabay oo ku leeyahay barashada luqadda Jarmalka als ich im 5. Schuljahr war markii galaaska shanaad aan joogay ama 8. Schuljahr ama 9. Schuljahr war bilaabay ayuu ku leeyahay macnaha qofka bini'aadinka hal mar ayuu Schuljahr 5. class noqdaa markii aan 5. galaaska shanaad aan dhiganay ayaa bilaabay ayuu ku leeyahay barashada luqadda Jarmalka ta u dambayso als ich 18 Jahre alt war markaas 18 sano jir ahaa habe ich verheiratet waan guursaday oo xilligaas 18 sano jirka ahaa ayaa aniga guursaday marka markii als isticmaalaysid qaabkan ay u shaqeynaysaa oo waxaa mar walba ka fiirinaysa sentenskaaga in waxaan ay yihiin wax hal mar dhacay marka dee aad ogtahay marka inay wax hal mar dhaceen automatic waxaa ogaanaysaa in meeshan ay galayso als when se u shaqeynaysaa ayadan sidoo kale sentenceyaala kasoo diyaariyey meelaha gaduudka ah wenta ku jirto iyo sidoo kaletood imada tusaale ahaan wenn wir uns gesehen haben mar walbo marka aniga is aragno hat immer freundlich gegrüßt mar walbo si farxad leh ayuu islaami jiray ayuu ku leedahay jedes Mal mar walba wenn ich gefragt habe mar walbo aan weydiiyo hat mir geantwortet wo isa jawaab markaan jedes Mal event iyo israacin oo aniga wax mar walba aan wax weydiiyo si wuu iga jawaabi jiray war immer schlecht gelaunt xaalad xun ama jawi xun ayuu galaa mar walba wenn früh aufstehen musste markii oo subaxdii inuu soo kacay inuu soo kacay tahay xaalad xun ayuu galaa ayuu kula inta badan wir haben immer viel Spaß mar walba farxad ayaan ku jirnay wenn wir uns sehen mar walba aan isragno
farxad ayaa ku jirta marka imadan mar walba waxay ku cadeynaysaa in ay yihiin waxaan wax mar walba soo laabta marka farqiga u dhaxeeya waxay tahay marka als isticmaalaysid waxa ogaanaysa sentenskaaga in oo wax dhacay oo hal mar dhacay oo ku jiro markii aad when isticmaalaysidna in sentenskaaga waxyaabo mar walba dhacaya sentenskaaga ku jiro oo tusaalena u yihiin in sentence oo jedes Mal ku jiro in immer ay ku jirto marka qaar xataa waxa laga yaabaa in labadan laga soo bixiyo oo lagu dhaho clear tusaale ahaan wenn ich gefragt habe hat mir geantwortet oo ku ogaatid yani macnaha in waxaan oo ay mar walba ee dhacayaan oo kale marka intaas ay kula gal kartaan farqiga u dhaxeeya labada qaybood waxa u malina inuu wax badan ka caawiyo hadii aad umaleys inuu wax badan ka caawiyay fadlan like sar inta kulankan xisaab badan kulmi doono aniga qaliija fi amaan illah